kalamaanay lacag dadaan lahayn oo ma jiro lacagta diidaaye lacagaha anoo dhowri jiray lacag ma qaateene bulsho lacag le baan leeyahoo lacag isiinaysa oo lacagta hoo ile anoon haybsan lacagtooda lacag aan xisaabnayn markaad lacag kalu geyso waa lacag siyaadoon waqeed lacagi gaarayne lacagtayda yeyla leh haddaan iyada lacagaysto lacagowgu ruuxuu hayaan lacagi deeqayne dadka lacagtu waa show tartiib lacaguhu raadsha ama lacagtu waa badan tahee lacag i weydiista war abdikuusow gabaygaas madawiinigii hore farmaajo tiri ay usi laaga laga ruureeli lahaayey war madaxii kubreedka gabaygan ka leexo xasan murtiila leh abdikuusow abwaan bisli hadda kahor wuxuu yidhi laangaruusal waxaan rabi lahay aan ku leyrsadee ilaahow adaa lacag hayee liira igu caawi war duqaa guri loo dhisaha lagu yidhi war waxaan idin weydiiyey qasri baaxad weynaa barasidentiyi hore loo binaynayaad iyo buuqiyasa waxankani ma dacaayad badatoo buuraha tallaawdoo shakhsi lagu bahdilayaa ma jacayl buraaqoo dulmi loo barkiyayoo booskiisii seegaa ma been iyo qayaaniyo xaquuq lala baxsanayaa baaroo bal eegoo baran waayey aniguye may bayaaminaysaan aan baranee noo kala baaro bayaanu caddeey aan baranee noo kala baaro bayaanu caddeey aan maqli jira war axmedow wan weyn bari ku shubidiyo ummaddeennan baahani kala baaba weeye waxaa aniga ii baxay hantidii la boobaa dadkaa bixiyey lacagtiiyo hadbaboolsku qarintiyo been lagu dadaaya waana baadilkoodan 5 sano ka baranay beesada ma dhiibteen war gabooso aad amal wal gorday weliba dheegi jiray inkastoo loo baaqo oo loo sheega barwaaqo dad bay meeli bugtaa dad bay meeli bugtaa dad bay meeli bugtaa madayow maya waa barkumataal iyo sheeka baralay warar barobagandaa lagu soo bandhigayee nimay boo ku taallaa isbaxnaaninaayo cudur uga bogsanayo isi soo beddelayee dadaan biidna garanayn ammaanadii la booliyaday uga sii badsanayee yaan laydin baayicin aryaadhaha waa baab su'aalahay beydkaa la sheegoo duqa loo binayhaa beesadiisa qadar iyo may baraadar aab iyo afaweerqi bixiyaan war waa waalantiina lacagtan shacabkaa go'aansaday inay bixiyaan waxaana guriga loogu magac daray mahadsanid madaxweyne war madaxweyne farmaajo markuu madaxtooyada ka baxay wuxuu degay baa leeri guri kiradiisu bishii 30,000 tahay oo 4 sano lagula heshiiyey tootalka lacagtaas markii la isu geeyana 4 sano milyan iyo baray ku dhowda lacag milyan ku dhowna waa lagu qalabeeyaa leeri waxa dhama wadaniyiintu ka dhiidhiyeen waa kiradaas qaaliga war madaxweynuhu waa sharci ku yuurar lamayo waxaa maqli jiray linna shaahow soo waayey linna shaarkaa ku yaraaday tii ama weli buushkaa deganta baawiino ma dhisane war warkaan laga qasinine madaxweynuhu cimrigiisa inta ka dhiman maamuus iyo daryeel qaran buu leeyahay waana xildhibaan aan dhicin hanti la'aanina ma hayso waa kaa guriga malaayiinta ku kiraystay marka soomaalinimada iyo wadaniyaddu hadday ka daacad tahay cidda waxbaan bixinaynaa leh ma dadka oonka iyo gaajada u baaba'aya gargaaraan warameedeeno taasaatu warsadaasa weli jeebu soomaalilan quraaha haysoo gadanka dara jireen waan walka baalgada jiray warawood lugub waad kharaarsantihiin afhayeenka jamaahiirtu wuxuu yidhi abaal baan gudaynaa war waa yaabaya jamaahiirtu ma jabhad cusubba war see jabhad madaxweynuhu abaal ugu yeeshay war nimayo weli shaqa ah laydin dirsan baad ku jirtaane nin kasta beertu tabcaduu gurtaa marka CBB 5 sano wixii la siinayay hadday soo celinayaan maxaa ka rabtiin war wuxuu ma fahmaysan weli reer magaal abdayda baydaan noqon sida wax la isku daba mariyo wax loo xalaaleeyana ma taqaaniine aan ku dhiiba soo dhig baa la yiraahdaa barnaamijkan war adinka qaran dumisnimaad ku raagteen waadinka ku dhagan guriga madaxweynaha hore loo dhisay madaxweynaha cusub caleemasaarkiisa iyo safaradiisa qarashaadka ku baxaya ma aragtiin miya war hormaysiine gabar Sweden joogta oo aanan magaceeda sheegeen ayaa 10,000 oo lacag inta loo diray waxa la yiri akoonka ku soo dir markaas 5 soo dirtay inta la wacay la yiri aaw 5tii kale markaas telefoon soo gala hadii kale iga leexda marka dadka sidaas oo kale sameeyeen 20 waa ka badan yihiin la yiri war waa kuwa dibadda jira kuwa update ka oo lacagta qaar reebtay waxa la yiri kuwa dalka jooga sidii loogu dhiibay akoonka ugu soo direen ayagoo waxba ka reeban war musqaayad maxay u qaateen akku baadinimo la helay aga barilahan maqli jir warna miyo madaxweynaha beesuus haysada
ya antuu hekaare ay dhibeen maray hadda farmaajo maa guri loo dhisaa mase boojo leh waaye aryaadaha siyaasad xabad kama taqaaniine arrintan gurigu lama micnay leedahay war cabdilla gurigaani waa guri madaxtooyada loo ekaysiin rabaa la yidhiye dhul dalcad ku yaalloo iiba ma haysaa anigu waxaan la yaabay cabdirashiid duqa dadka lacagaha u soo diray oo iskriinshotka ka soo qaaday dhammaantood haraagoodii waa eber dollar marka ma akoonna lacagtan keliya loo furayo inta lagu shubay laga soo celshayba mise waa dadaysan uga dambayn war indhaxuna wax ku fiilisaaye waa dad ay daacadnimadu ka badatay oo madaxweynuhu waxba aanan ka reeban aryaadaha warkaad iga dhex gasheena lamada ujeedo arrintan laga leeyahay waxay kala yihiin mid waa ii dhahoo shacabkaa ijeceloo guri ii dhisay waaye midda kalena qarashkii iyo aftucuulkii la qaatayaa lagu dadadayaa oo lagu baabi'ihaa warawowodlagu madaxweynihii hore maxaa ayna daba dhigay sidaa baad u feedhanaysaane war goranawlankii gurbaantumay ilaagdalbadiya leeray madawiinagiyeedo abaar iyoonay oon dadkan baaba'ayan u si ari shacabka guri in dhisaayan warnimayow war ma haysaane soomaalida mar qabyaalad baa lagu wareeriyey marna diinteediyaa lagu wareeriyoo ninba siduu doono u dhigtay haddeer taanna wadaniyaddii iyo macnaheedii baa lagu wareerinayaa warwar ma haysiine madaxweyne xasan shiikh galmudug iyo koonfur galbeed waa kii isu soo maray habeenkii u dambeeyey khudbada uu ka jeediyey dhuusamareebna wuxuu yidhi soomaali heshiis ah adinkaa ka dhimana tareenka soo raaca ma yidhi aryaadaha madaxweyne xasan shiikh dhuusamareeb inta uu jooga waa loo heesa maantoo kalena madaxa na furan yeerena armadeeyow saas maahina joog weligaa joog ay dhaheen kadibna madaxweynihii wuxuu yidhi kooxdaan heestay ee weligaa joog ileh joog looma baahna muddaxileedaana la rabaahoo aniga 4 sanaa lay doortay dawladnimaduna iska joogid maahina wuxuu yidhi waa qore isu dhiib waxaana muhiim ahou yidhi qof walba muddadou heesto in lala shaqeeyo hadduu wanaag sameeyo ha la doorto mar kale hadduu xumaadanayow mug kale idinsoo naqan war madaxweyne xasan shiikh asagood mooddo inuu ku dhaga hadlayo rag muddadoodii ka badan inay sii joogaan rabaa wuxuu yidhi nin odayaa hadda ka hor xanuunsaday markaasaa la yidhi warniyo indhahaagu ma qumanee dardaaran wuxuuna ku jawaabay buu yidhi bukaankii inaan jooga jeclaaya marka kursiga waa la wada jecel yahay laakiin qof kastaa markuu wakhtigiisa dhammaystaa sida naftoo kale laga jiidayaa buu yidhi haa ileen rafadka madaxdan la yaabayno waa sakaraadkoo kale horta kooxaha fanku madamiinnaa waa kuwa nin kasteeta taliyoo ha tegin leh maxilligii kacaankii bay hurdeen war xasan ama xusaankii xilka qabtaba muddo uu leeyahay ismaqiiqna cid damboo laga yeelaya ma jirto badbaado qaranaa joogta taasoo waxaa la yidhi anti dishibiliin laadar iyo walax kaloo caaya distonaato forotemba iyo alta iyo baaso lambadi jardiina iyo duwaya una barsay fiilo hadduu oda yidhaa wuxuu ka yimid berisamaadkiiye kacaankiina inuu soo noqdo manka ku haya war intaad warka la rafanayseen baa muddaxileed kale ahe goormaa muddaxileedka saan loo gaabiyey madaxweyne xasan shiikh wuxuu yidhi mar hadday doorashadii dhammaatay kala fogaanshihii khilaafkii waa dhammaaday marka asxaabay cayaartii waa dhammaatay caadi iska dhiguu yidhi war qoorqoor iyo lafta garan iyo rag badanaan ogahayba goormaa laydinka aarsan doonaaba islahaayeene hadda macaadi iska dhigaa loogu laabqaboojiyey war may hadlaanoo lanka aarguuda awlaad aawkuina la duqda oggolaas ma jirto war habeenkii doorashadu dhacday qoorqoor iyo lafta gareen niman u tacsiyeynayaa waxay dhaheen beddel khayr qaba allaha idin siiyo marka ma moodaa in ducadii alla u aqbalay aryaadhaha idinkoon isdaalin samigay cabdulla wuxuu yidhi dad is og inay gaaleen akuule waa la aarsaha dad is og inay gaaleen akuule waa la aarsaha abdulow eedaysano waa lagu arkaa eedaysano waana lagu abaalmarin ya dheegi jiray hatuma dun iyo arti dhammaatay aad iska dhigo waa la eray war caadi ha layska dhigaa mayaan layska dhigine dastuurka dalka in lagu dhaqaa waa lagama maarmaan war waa layga caarsanayaa nin yidhi dembi qiray baa la yidhi warwar ma haysaana wasaaradda arrimaha dibadda somalilan waxay tidhi gabooso wallaha kaa cafiye meeqa safaaraday xukuntaa wasiirka arrimaha dibadda somalilan dhuxul ma gadee mas-uul wasaaradda u hadlay wuxuu yidhi wadahadalkii somalilan iyo soomaaliya inuu dib u bilowdaan rajaynaynaa sababtoo ah ninka hadda la doortay meel wanaagsan bay wax noo marayeen berigii hore war somalilan war kama haysiine hogaamiyaha mucaaradka yuganda beeb wayn oo ah fannaankii xildhibaanka ahay oo ay musafeeni madaxa iyo qoorta sida galeen ayaa shir hargeysa uga qaybgelaya war yuganda oo ciidamadeedii soomaaliya joogaan miyaa somalilan aqoonsatay war adiga laftaadaa somalilan yaqaane maxaad yuganda ku haysataa war ma ku qancaysaan inaan idin naqaanno nama taqaanina haddana aqoonsadaadna leedihiin aryaadhaha
war ma haysina gobolka bakool shabaabaa cirka dig looga soo yiriyaa la yiri sargaal iyo koox la joogtana waa amuudeenaa la yiri war beelka arsanaysay sidii reer beled weyne miyaa weerartay war ma haysana madaxweyne xasan sheekh oo la weydiiyay shabaab wada hadal ma la gelaysaa wuxuu ku jawaabay annagoon ka adkaan la hadli mayno marka waxaan la yaabay weli dawladdii lama dhisin odagu goortuu diyaar garoobay war waxa uu yidhi hadda ka hor ayagaa wada hadallada diidi jiray haddeero ay dadkeenni laayeenna annagaanba ka yeelayn hoobjac ma la yiriyo ciidanka furunta ma la geeyehe maya taliye aa la yidhi digtoonow war madaxweynaha puntland siciidani wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheekh ballanqaad rasmiyuu noo sameeyey ma midkaad sheegaysaana war lacag haddii madaxweynihii hore loo ballan qaaday maadinkaa ku heesta war nabad iyo nolol waxay dhaheen muddadii ra'iisul wasaaraha la soo magacaabi lahaa 9 cishaa ka hartay dastuurkana waa lagu xadgudba haddaan muddadaas lagu soo magacaabin war shabaabka haddii waddanka laga xoreeyo ma cid baa diidaysa wari ay kari lafta gareena ra'iisul wasaare lang magacaabi war xukuumadda rooble ilaa ay xilka ka wareejinaysa waa sii shaqaynaysaa aryaadaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed kusima naqamaa miyaad war mahdi hadduusan ra'iisul wasaare u dallacayn ku-xigeenka yaa ku haysta war rabla meeshuu ku dabaashay waa xeebta liido war tareenka madaxweyne xasan sheekh shabaab ma qaado miya war soomaali heshiisuu ku yidhi adduunkana la heshiisa war ayinku soomaali maahan miya war qaladumiski ma la xureeyey aryaa maadaa soomaali ka dhigaya maadaa ka saaraya war dad la shaqeeyaa jira war dalka dadkiisiyaa joogay naga taga waryaada war kalamaanay waxaa la yidhi mas dhunkadee mariid fool marsadee bulac muraadeeye musuq koriyey miisaan jalfiyo tuug marxabadeeye maskiin jaliye maatida handade cadow u muusoode dulkuu malable hoos mililku siday midaba toog yeeshe masiirkiyo micnaha xeerka qoran maag u kala tuure miidiyaha war mulukuula iyo mala awaal siiye muluqshiyo duqow iyo marwiyo idil mataabtaanka sida eri maquunaa midida sahan ku miidaanshe muraadkaada waa garanayaa ruuxi maan luuye mujtamacaan waxaad maagan tahay maro ka saarayne waxba hees marmarin boorka waa la isu muuqday